Hello daawade, adduunkan aynu ku noolnahay waxaa jira dadyow la yaab leh oo dunida ku nool. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dadka adduunka ugu yaabka badan. Ninkan la yiraahdo Carlos Half Rodriguez. Ninkan ayaa gebi ahaanba waxaa ka maqan qaybta kore ee madaxa. Carlos kuma dhashan sidan. Ninkan ayaa waxa uu madax ku dhuufsaday tabeelo ama baalo wadada ku taalay kadib markii uu ka soo boodi miraayada hore ee gaariga. Markii uu gaariga waday, waxa uu ahaa mid cabsan oo daroogo ayuu iska soo buuxiyay. Chani Plaving. Ninkan ayaa ah ninka ugu gaaban adduunka, laakiin qaabkiisa qofkii arkaa uu u malaynayo canug yar. Ninkan ayaa dherer ahaan waxa uu la fac yahay jooga diiqa, cabirkiisuna waa 23 inji, 59 sentimitir. Chani waxa uu dhashay sanadkii 1993. Ninkan ayaa hadda waxa uu jiraa 26 sano. Chani ismuu dhihin waad gaaban tahay, waxa uu jeclaaday gabar ka dheer kadibna wuu guursaday. Nick Stober. Ninkan ayaa ah ninka ugu carabka dheer dunidan. Dhirirka cabirkiisu waxa uu gaarayaa 9.3 inji, 10 sentimitir. Waxuuna ku guulaystay shahaadooyinka la siiyo dadka iskoorka adduunka u yaala. Jerry Turner. Ninkan ayaa qaba xanuun dunida dhif iyo naadirka ah, kaasoo kaga dhacay maqaarka, waana ninka ugu maqaarka dheer adduunka. Maqaarkiisa ayaa ah mid jiidjiidma ilaa cabir, waxaana sababay xaalad caafimaad darro, taas oo lagu magacaabo Ehlers-Danlos syndrome oo saamaysay xubno gudeedka jidhka, gaar ahaan ligamentiga hoose ee lugta. Francisco Domingo. Ninkan ayaa ah ninka ugu afka weyn adduunka. Ninkan ayaa ku faraxsan afweynidiisa. Markii uu jiray 20 sano ayaa lagu daray liiska dadka adduunka ugu yaabka badan. Ninkan ayaa wax uu ka soo jeedaa Angola, waxa uuna noqday dadka ugu caansan adduunka kadib markii la arkay muuqaal uu soo geliyay bartiisa YouTube-ka, kaas oo uu ku cabirayay cabirka afkiisa. Cabirka afkiisa ayaa waxa uu gaarayaa 6.7 inji, 17 sentimitir.